qofkii aanan qiimeyn qiimaha noloshiisa ay hooyadiis ku leedahay ma helo isagana qof qiimeeya qiimaha noloshiisa. waa halkudhega qisada maanta ay xambaarsan tahay. dabcan waxaa jiray wiil dhakhtar ah waxa uuna doonay inuu guursado gabadhu markay ogaatay duruufaha wiilka ku xeeran iyo sida ay noloshiisu hoos u tahay ayay shardi waxay uga dhigtay inaysan hooyadii kasoo qaybgelin maalinta arooskeeda. arrinkan oo wiilka ku adkaaday ayaa wuxuu go-aan ku gaadhay inuu la tashado saaxiibkiisa aabihii ahaana bara jaamacadeed oo jaamacadda wax ka dhiga. markuu arrinka u sheegayna aabihii waxa uu ku yidhi ama macallinkii jaamacaddu waxa uu ku yidhi waa maxay sababta ay shardiga ay gabadhaada u doonayso. dabeedna waxa uu ku yidhi aabbahay anigoo yar ayuu dhintay, intaa nolosheeda waxaa kafaalo qaadatay oo ila soo tiiriya tacabeeshe waa hooyaday. waxayna samayn jirtay si ay nolosheeda u kafayso, guryaha ayay tegi jirtay waxayna u dhaqi jirtay dharka. sidaa daraaddeed yacni wax lasoo dhaafay ayay ahayd oo yacni shaqadaas ayay hooyadii ugu soo korisay. iyaduna waxay diidaysaa qof sidaa u shaqayn jiray oo yacni dadka guryaanta ugu toog dharka uu soo dhaqi jiray inuu maaragtay arooskeeda yimaado. macallinkii wuu fakeray, dabeedna wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa marka ugu horreysa waxaad tagtaa gurigaagii, waxaad u tagtaa hooyada, labada gamcood keliya u dhaq, beri ayaan tala kale ku siinayaa. dabeedna wuxuu sameeyey uu tegey gurigii ayuu tegey, hooyadii ayuu tegey, labadii gamcood ayuuna u dhaqay. dabeedna markuu arkay labadii gamcood hooyadii waxa dhaawac ku yaala ee ka soo gaadhay dhaqdhaqidii ay xaafadaha u dhaqi jirtay, waxaana aysan u sheegin ay had iyo jeer ale isaga sidii noloshiisa u kafaala qaadan lahayd ay ku jirtay, sidii gebi ahaanba inuu gabadha guurkeeda ka noqdo. macalinkiina uu wacay wuxuuna u sheegay inuu gabadha guurkeeda ka noqonayo. dabcan hooyo waa laga maarmaan. saaxiib waxaad ilaalisaa hooyada. ku mahadsanid daawashadaada. haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir.